markaad tiraahdo war hebelow ama heblaayoy maxaad ka faa'iideysaa meeshan aad ku tagaysid oo aadan ugu bixinaynin walaalka lacagta ah halkaas ku bixinaysid waxa uu ku leeyahay waxay tahay naftayda ayaan ugu raaxaynaya billaahi calaykum raaxada taale maxay tahay meel markaad tagtid aad dambi ka soo iibsatay ee dunuub lagaaga soo qorayo ee maalinta qiyaamada lagu soo hordhigayo ee lagu dhahayo iqra kitaabaka kafaa binafsika alyawma calayka xasiiba maxay tahay raaxada taalo. bismillah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaan walaalaha khiyaarta asxaabtaan jeclahay ee janalkaygan waana ku xiran walaalayaal soo dhawaada walaalahay warshubnaan soo dhaweynaya waxaan ilaahay soo dhawaada gacankan ku soo dhawaada sidoo kale walaalaha nagala socda Facebook page-ka TikTok aan leenahay soo dhawaada adiga haddana daawanayna walaal haddii ay ku tahay markii ugu horeysay oo aad janalkan daawatid misana aad ka heshay waxyaabaha aan janalka soo dhigno waxaan ka codsanaa waxay tahay inaad naga ilaawin inaad janalka subscribe noo dhahdid gambaleelkana aad furitid si mar walba cusub aan soo dhigno ay ku soo gaaraan dhammaantiin aad iyo aad u mahadsantiin. maanta khiyaari asxaabi waxaan idiin wadaa mowduuc sidiisaba markii la maqlaba qofku uu ka yaabayo موضوع wuxuu ku saabsan yahay موضوع wuxuu yahay qof dambi soo iibsaday ma dunyada ma waxa jir dad ma aragtaan intay meel tagaan dunuub soo iibsanayo ha way jiraan markii aan ma aragtaa موضوعan u guda galanay waad fahmi doontaan insha Allah dadkaasi waxay yihiin iyo sida ay dunuubta soo iibsadeen dadkaasi ay dunuubta soo iibsanay waxay u qaybsamaan laba qaybood horta ugu horeynbo qaarna waxay ku iibsadaan dambi ay waxay ku iibsadaan lacagtooda qaarka kaleentoodne dambi ay waxay ku iibsadaan waqtigooda ay dambi ku iibsadaan waqtiga oo waliba aan ognahay inuu ma aragtaa lacagta ka qaalisan yahay maxaa yeelay waqtigu sidiisaba ma jirto maanta lacagta adduunka taalo hadaad bixisidne lacag aad ku helaysid waqti shalay ku dhaafay shalay maanta ma soo laabanaysaa waa mustaxiil qof ku soo celin karana malahan adigana ma soo ceshan kartid ilaa maalinta qiyaamo bay imaanaysaa maalintaas ayadoo kugu dacwinayso hadii aadan sida loogu talagalay uga faa'iideysanin waqtigu sidaas ayuu marka qiimo u leeyahay uu bale lacagtuba ka sii qiimo badan yahay marka dadkaas horta labadaas nooc ay u qaybsamaan qaarna lacag bay ku iibsadaan dambiga qaarna waqtigooda ay waxay ku iibsadaan dambiga haddaba dambigaas la iibsanayo muxuu yahay waa markaan si kooban uga hadalnay dambigaas la iibsanayo isku soo duuduuba waxa weeyaan heesaha ognahay sanadkan sida loogu fidneysan yahay iyo sida loogu ibtileysan yahay iyo walibane maanta waxaaba loo arkaaba dadka qof aanan hees dhageysan ama aan isla ruuxin inuusan ahayn qof ilbax ah ama dunida ma aragtaa la jaan qaadi karo qofkii maanta aad ku tiraahdid waqaasatan dhalinyarada qof dhalinyaro oo maanta aad ku tiraahdid walaalay ama walaalow heestan iska daa ama hees aad kala hadashid wuxuu ku arkayaa qof ma aragtaa dambeeyo oo ma aragtaa dunida aan la soconin marka walaalahayow dadka dunuubta soo iibsanayo horta labadaas ay u qaybsamaan haba u qaybsamaane qaabkee ay u soo iibsadaan waxay u soo iibsadaan maanta waxaad ogtahay meel hadii ma aragta ama Yurub ha noqoto ama dalkooda ha noqoto ama America Canada Australia meesha duuntid badhe meel markuu fanaan yimaado waxaan ognahay in fanaankaasi meesha uu yimid ee la isugu imaanayo isku imaatanku ka dhacayo in lacag lagu tago oo markaad galaysid meesha waxaan ognahay showiyada lagu qabto inaad ku bixinaysid lacag qofkaasi lacagta uu bixinayo uu meeshaas ku bixinayo waxa laga yaabaa anigu ma dhahayo way tahay laakiin waxa dhici karto in qofkaasi uu ma aragtaa uusan lacagtaasi ay jiraan dad far badan oo walaalihiisa u baahan ay jiraan dad qaraabadiisa u baahan ay jiraan dad masaakiin ah oo u baahan inay badan yihiin dhici karto haddana uusan siininin ama uusan ugu deeqinin markaad tiraahdo war hebelow ama heblaayoy maxaad ka faa'iideysaa meeshan aad ku tagaysid oo aadan ugu bixinaynin walaalka lacagta ah halkaas ku bixinaysid waxa uu ku leeyahay waxay tahay naftayda ayaan ugu raaxaynaya billaahi calaykum raaxada taale maxay tahay meel markaad tagtid aad dambi ka soo iibsatay ee dunuub lagaaga soo qorayo ee maalinta qiyaamada lagu soo hordhigayo ee lagu dhahayo iqra kitaabaka kafaa binafsika alyawma calayka xasiiba maxay tahay raaxada taalo dad baa sida kugu jawaabay markaad tiraahdo halka lacag ku bixinine lacagtan sadaqayso oo walaalkaasi wuxuu ku leeyahay naftaydu xaq bay ugu leedahay wuxuu ka soo qaadayaaba nafti xaq ay ku leeyahay inay tahay inuu dunuubtaas ugu raaxeeyo
warsidaa ma ahan naftu xaqa ay kugu leedahay waxa weeyaan inaad dunuubtii macaasida aad ka celisid waliba sabankan haddana waxaaba fidnada heesaha maaragtaa sii badiyay waxay tahay waxaa soo baxday culimo maaragtaa banaynayso aan culimo ma dhihi karee culimo ku sheeg banaynayso oo dhahayso heesa ayaa xalaal ah taas ayaa dadkii boholo kusii riday waxaa kaloo maaragtaa meesha ka muuqato waxay tahay in lagu jiro aakhir saban in lagu jiro weliba xilliga uu nabiyina maxamed sallallahu alayhi wasallam uu noo sheegay inay maaragtaa heesuhu badan doonaan iyo dadka heeso maxaa yeelay maanta Soomaali kaliya marka u fiirsatid inta fanaaniin Soomaalidu ay leedahay ee fanaaniin ka soo baxday wallaahi alcadiim waxaan ku iri dhagaha ku taagtaagmay maalin walba ama bil walba ama sanad walba intaasoo fanaaniina soo baxday intee u socdaan bal idinku ma isweydiiseen adduunyada waa soo joogi jirnee sidaan fanaaniintu ma ahaan jirin way jiri jireen laakiin waxay ahaan jireen wax xadidan oo kooban laakiin hadda qof walbo halkaas ayaad moodaa in maaragtaa bariiski adduunyada lagu sheegay waana sidayba taho maxaa yeelay wuxuu og yahay in maaragtaa dad badan oo soo xaadirayo oo lacag ku bixinaya inay jirto walibana fanaaniinta dad baa laga yaabaa inay fanaaniinta eeda saaraan laakiin anigu fanaaniinta eeda saarmay anigu waxaan eeda koowaad saaraya waxay tahay dadka heesaha dhageysto maxaa yeelay ugu fanaanku haddii uusan helin dad dhageysta ama taageero inuusan weligiis soo heeseen laakiin wuxuu og yahay inay imaanayaan ama maaragtaa ay jiraan dad badan oo taageeri doono oo showiyadiisa lacag ku bixin doono oo heesihiisa iibsan doono oo heesihiisa maaragtaa la socon doono oo intaas views ay siin doono sababtaas waa sababta ku xambaaraysa inay fanaaniintu sii bataan ayna heesaan marka qof waa qofkaas oo waa qofkii maaragtaa intuu meel tagay show tagay maxay heetoole lacag ku bixiyay shaki kuma jiro inuu qofkaas dambi soo gatay dambigaasna in loo qori doono oo welibana uu lacag ka bixiyay waa qariib wallaahi dambi lacag lagu gadanayo waa waxaan la yaabaa anigu maskaxdeeda way geli weyse lacag bixi oo dambi soo gado waa wax lala tacajabo qof waa qofkaas qofka kalena waxa weeyaan waa isagana qofka maxay heetoole waqtigiisii qof waqtigiisii ku gadanaya weeyaan heesaha sideeba ugu gadanaya wuxuu ugu gadanayaa haddii aad maanto idil haddii aad shaqaynaysid iyo haddii aad gaari wadid iyo haddii aad guri ka shaqaynaysid iyo mar walbo haddii ay dhagaha kugu jiraan ama laga yaabo xataa inaad inta u fariisatid oo mararka qaar ilaa fiidiyoyaal lasoo duubay fiidiyowga aad fiirsatid sida laysku ruxayay sida laysku dhexgalayay balaayada ikhtilaadka meeshaas ka socdo soo ma ahan inaad waqtigaagii ku iibsatay ilaa waqtigu waa qaali waa shay ma aragtaa aan si walba lacag walba lagu heli karin waa shay ma aragtaa cid dunida ku soo celi kartina aysan jirin san hore usoo sheegay cid maxay haytoole lacag kaaga iibin kartana aysan jirin marka waqtigii saas ahaa soo kumaadan iibsanin dembi cad oo kuu muuqdo oo uusan shaki ku jirin waad ku iibsatay adiga ama iska dhaadhicisa naftaan ugu raaxaynayaa ama iska dhaadhicisa ma aragtaa naftaan ku madadaalinayaa adduunyada waxaa badan waxyaabo fara badan oo xalaal ah naftan lagu madadaalin karo laakiin taas marnaba qiil kuuma noqon doonto adna waa ogtahay adna waa ogahay cid walboo caqli u saaxiib ahna way ogtahay marka sababtaas ayadan daraadeed waxaa sababta aan u dhahay maxay heetoole dembi ayaad soo iibsatay waad iibsatay dembi waqtigaagina waxaad ku gadatay dembi adigoo heli kara waqtigaaga wax nacfi ku leh oo maalinta qiyaamana ajirkeeda lagu siinayo insha Allah haduu Ilaahay ku aqbalo adoo ku qabsan karo ama aragtaa u isticmaali karo inaad sidaas waqtigaaga u isticmaashid waxay ka dhigan tahay adiga oo waqtigaagii dembi ku iibsaday marka dadku labadaas ay u qaybsamaan inta Ilaahay ma aragtaan heesaha waxyaabaha la mid ah uu Rabbi ku ibtileeyay waa labadaas nooc ay ma aragtaa dembi u soo iibsadeen waxaa badan oo kaleentood maxay heetoole dad waxyaabo kale intay sameeyaan sidoo kale ayagana dunuub looga qoro laakiin tan waxaan usoo qaatay anigu waxay tahay waxay noqotay aafada samanka ayay noqotay waxay noqotay mid ma aragtaa dad fara badan ay ku ibtileysan yihiin oo laga yaabo inay ehel ku yihiin laga yaabo inay qaraabo ku yihiin laga yaabo inay adiga laftirkaaga ka mid tahay marka sababtaas oo sababta igu xambaartay inaan ma aragtaa iyada kaliya aan soo qaato oo aan dhaho maxay heetoole qof dembi iibsaday waxaan rajeynayaa walaalahay inay hadda fahanteen sababta aan u iri maxay heetoole qof dembi soo iibsaday
maxaa dambi inaad iibsatay marka hadda waxay la tahay shirkaaga ma jiro waxayna ila tahay insha Allah maanta wixii ka dambeeya haddii kilibkiigan ku soo gaaro inaad adigu qaabka u fikirayo ina bi'in illaahi albaari ilaahay maaragta waxaan ka rajeynayaa inuu ka soo hanuunin doono ilaahayna waxaan ka rajeynayaa in ummadda islaamka dhammaanteed ilaahay ka badbaadiyo ilaahay ayaa badbaadada iskale hidaayadii hanuunkan ilaahay yaa bixiyo qofna qofka kaleento xataa haddii uu yahay qofka uu dunida ugu jecel yahay waxa waay hanuunna uma hayo hidaayana uma hayo ilaahay baa u hayo marka sidaa daraadeed ilaahay baan weydiisanaynaa ilaahay asaga awooda sare iskale inuu ma aragtaan fidnadaanita uu barbar naga mariyo inta ku fidnaysan inuu ilaahay ma aragtaa ka soo hanuuniyo inta aan ku fidnaysnayn inuu ilaahay marnaba fidnadaas uusan soo marin aan rabbi subxaanahu wa tacaala weydiisanaynaa insha Allah idinkana waxaan rajeynayaa hadda waxay tahay inaad fahanteen waxaan rajeynayaa waxay tahay inaad ka digtoonaan doontaan insha Allah biidnillaahi albaari oo aydan ma aragtaa dambi soo iibsan doonin aad iyo aad ugu mahadsantiin daawashada aad ma aragtaa fiidiyowgan daawateen insha Allah fiidiyowgan fiidiyow xigintan kulmeen waxa idinkaga tagayaa waxay tahay salaamta salaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh